soo dhawaada aad u mahadsantihiin. Waan idinkaga mahadcelinaya saad ugu xirantihiin channelkiina dhammaan ardayda iyo bahda kale ku xiran channelka media waa salaamaya. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashar kale oo runtii aad u muhiim u ah. Casharkaas oo ku saabsan Google Ads waxa la yidhaahdo. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa Google iyo Google Ads. Sida labada socotaanba waxaan kusoo jirnay social media. Social media waa soo dhammaynay. Waxaan guda galaynaa Google-ka. Google-ka laba platform baa hoos taga. Isagoo Google-ka ah iyo YouTube-ka. YouTube-ka wuxuu hoos tagaa social media laakiin Google-ka ma hoos tago social media wuu ka baxsan yahay. Taas waa mid. Intaanan casharka u guda galin ku dadaal inaad telegramkayga kasoo biidhaan halkaas analysis fiican baa ka socda. Sidoo kaleetana aad subscribe saartaan channelkayaga aadna casharkana share garaysaan. Dhammaan casharadan qoraala dhawaan iyaga free ah insha Allah casharada ugu dambeeya waan kusoo tixi doonaa. Casharkan maanta waa casharkii 9aad. Hal cashar baa ka dambeyn doona casharkii 10aad u dambeeyay. Asna aad muhiim u ah kaasoo ka hadlaya email marketingka iyo search engine optimizing. ugu horreyn horta waa maxay Google waa website-ka ugu weyn ee maanta adduunka la booqdo. Yani website waa la yaqaanaa. Website waa wax kastoo yani degal kastoo baraha bulshada oo qayb gooni ah leedahay ha ahaato war ha ahaato wax. Website-ka marka google.com waa website-ka ugu badan ee maanta adduunka la booqdo. Shaqadiisuna waa maxay? Shaqadiisuna waa hal wax kale maaha. Waa engine search. waa matoor wax baara weeye. Google-ka haddaad halkaa tagtid aad wax ku qortid kii waxa soo saara waaye. Waxaasi waxay ku xiran tahay in online-ka la geliyay. Laba si baa marka loo geliyaa online-ka. Qayb waxa la yiraahdo wuxuu wax ku baaraa spyware oo website-dada Google internet-ka dhan buu spyware ku sameynayaa. Wuu soo search gareynayaa wixii buu soo saarayaa. Midna wuxuu ku soo saarayaa xog guud oo inta caama ah oo Google laftarkiisa uu diyaariyay cilmi iyo baxthi uu ku sameeyay. Xogaha guud ee cilmi baarista waxaa ka mid ah luqadaha oo kaleeto. Google-ku wuxuu leeyahay app-kiisa translation-ka. Waxyaabaha kaleeto Google-ku leeyahay waxaa ka mid ah anaadka Soomaalidu u aqoon sheet-scan iyo doc-scan labadaba waa documents iyo online ah. Platform-kiisan aad buu u ballaaran yahay. Kii sawirada lagu keydinayay baa ka mid ah, calendar-kii baa ka mid ah. Waxyaabaha successful-ka ku yahay Gmail-ka ka mid ah Google-ka ee caanka uu ku yahay. Maadaama uu yahay website-ka adduunka maanta loogu booqashada badan yahay hal waxna laga raadiyo. Waxaasi waa maxay? Waa in yani search-ka ah. Search-kii baa waxaa loo bedelay ganacsi. Saas wuxuu ku yimaaday in la sameeyo digital marketing. Search-ka yani waxaan ka wadaa haddaad maanta u baahan tahay inaad dirac heshid oo halka dirac ku qortid diracii wuu kuu soo saarayaa. Laakiin adduunka inkastoo Soomaali aan nahay aanan aad u isticmaalin haddaad ku qortid maro sweatshirt oo kaleeto ku qortid ilaa waa shaygiyaashii horta markood kuu soo sawiraya soo ma jeedaan iyadoo iyo noocyadooda iyo waxa kala duwan. Kadibna waxaa laga yaabaa dukaanka ugu paragraph-ka ku xiga inuu dukaan ka dhigo. Yani maxaa sababaya inay Amazon sweatshirt-geeda halkan yani ay soo gasho? Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay tahay inay ugu caansan tahay kuwa kaleeto ay yara ka caansan tahay. Ama waxaa laga yaabaa inay statistics-kooda search-ka uu leeyahay aan halkan ku arki doono ku sharixi doono. Uu ku soo saarayo inuu ayaga ay ugu soo hormaraan. Marka digital marketing wax kale ma qabto. Markii ganacsi ama shay ama wax adiga kugu saabsan Google-ka halkaas la geliyo inaad adigu ugu soo hormartid ba digital marketing ku qabataa shay kale ma qabato. Iyadii baa waxaa loo bedelay ilaa dhowr nooc waa la casriyeeyay. Waxaa lagu dadaalay waxa ugu fiican in lagu soo saaro. Shaqo kale oo uu qabto digital marketing-ka marka la joogo Google Ads-ka ma jirto. Waa mid. Midda labaad soo ma jeedaan dhammaan wuxuu soo saaray waa dukaamo get up 80% waxaasoo dhan soo ma jeedaan. Marka shaqada ugu wanaagsan ee uu qabto waa search-kan niri. Search-kii baa wuxuu noqday ganacsi galay oo heerkaas soo gaaray. Okay. Ka soco Google Ads-ka markii Google-ka u baahday in xayeysiin la sameeyo waana website-ka labaad wuxuu aad uga fiican yahay macaamiisha adduunka laba nooc weeye. Facebook-ga bimatalan xayeysiinta Facebook-ga haddaan maanta xayeysiin Facebook iska galo oo iska search gareynaya aan wax arko maybe aan arko maybe aan arkin aan wax arka aan xayeysiin arko
waxaa laga yaabaa xayeysiintaas. Okay, tan oo kaleeto sponsors ma jeedid, waa xayeysiin. xayeysiintan inaan aniga wax dana aanan ka lahayn keerka ma lihi, sababtoo ah isaga kay soo baxda inaan gamekan aanan dheelin baa laga yaabaa. laakiin marka inta halkan aan tago forge speed aan ku qoro daan miiri sida anigu xayeysiintan rabo, soo ma googlekan tagay halkaan aan kusoo qoray forge of empires baan qoray. marka waxaan rabaa inaan forge empires helo ama aan gato baan rabaa, saasaan googleka ugu qora. waxaa laga yaabaa inaan rabo inaan gato, inaan barto in feature ka dhiman aan gato. that means qof kasta oo googleka yimaado oo wax search garaynaya, shayga search garaynayo mostly boqolkiiba 60 waxay u badan tahay inuu gato ama shaygaas uu xiseenayo oo wax ka faa'iido waxa haysid badeecada. saasa ayadana muhiim ay ugu tahay in digital marketing uu xayeysiin ku sameeyo halkan, oo ah in uu ugu soo hormartid waxyaabaha la search garaynayo inaad ugu soo hormartid. hadda soo ma jeedaan xayeysiin weeye tan, waa arki doonaa aad ba ku taala. sababta ugu soo hormartana waa maxay? waa xayeysiin. ayaga qolada laftirkooda baa xayeysiin googleka sameynaya. intaas weeye. okay, haddaan google adska usoo qayb galno, google adska sidoo kale waxaa hoos taga youtube-ka. qofku markuu u baahan yahay inuu google ad sameeyo wuxuu qorayaa google ads bas ka qor. ama sidoo kaleeto waxaa qori kartaa haddaad rabto si ka fudud ads I think google.com. hore baan kugu sheegay iyagoo dhan waxa weyn kuma kala duwana, soo ma jeedaan intaan waaye grow your business with google ads. ganacsigaaga kori adoo isticmaalaya yani si halkan tusaale kaa siinaya. google-ka tagtay online bakery buu kugu soo qoray. aduu waxaa iska leedahay dukaan kabiris la yihahdo, kabiris online bakery delivery buu ugu soo horumarinaya isagoo adkan isticmaalaya. muhiimadiisu waa intaas. google adku marka wuxuu qaybsamaa 2 qaybood. midkood waxaa la yihahdaa search, mid labaadna waxaa la yihahdaa display. yani searchku waa qaabkan hadda aad wax u jeedaan, soo ma jeedaan query baa la yihahdaa ama search, in qofku intuu halkaa tago uu wax baarto oo wixii raadiyo uu halka ka helo xayeysiinta ay ugu soo hormarto. midda labaadna waxaa la yihahdaa display, waa in websiteska aad booqanaysid. hadda website uu ii sheega, hadda aljazeera oo kaleeto I think maba tanba, sorry I just miss it. tan waa xayeysiin, soo ma jeedaan top 10 English tutors near me. xayeysiintan inay halkan iisoo baxdaan waxaa sabab u ah waxaan baaray googleka, waxaan ka baaray English tutorska googlekan ka baara. that's why English tutorska ay ku jirta waa u maleynayaa. no. English soo ma jeedaan course elementary advanced waxaasaan baaray saakay automatically wuu iisoo saaraya aljazeera. xayeysiinta waa tan top 10 English tutors. tan xayeysiinta noocaana ee adoo website ku dhex jira haddana googleka inta wax ka dhex baadhay wixii googleka adoon ka helin ama ka tagtay adoo website ku dhex jira kuu soo baxo display baa la hadda way baxday. haddaan pageka refresh gareeyana mid kale soo baxda ota coursero. jaamacaddan coursera la yihahdo waa abka ugu weyn wax laga barta adduunka oo online-ka ah. ilaa dhowr jaamacadood baa hoos taga baa soo baxsay. hadda coursera soo baxda, waxaa laga yaabaa inay baxdo oo ay mid kale soo tagto. coursera waxaa laga yaabaa online educationka wax la xiriira inaan baaray baa laga yaabaa. that's why uu googleka muhiim u yahay xayeysiintiisu aysan innaba caadi ahayn. waxyaabaha waxay ku jirtaa xayeysiimaha aadka u guuleystay. mafhuum in halkaas la fahmay baan qiyaasayaa. googleka markaad soo furataan aad buuxbuuxisaan think sun in baa leedahay ama starting now, marka buuxbuuxisaan verification wax walba idin soo gudbiyo halkaan buu idin keenayaa. waxaa laga yaabaa qaab kale inaad u aragtaan switch saan aad u aragtaan. mar walba waxaa muhiim inaad saan ku furan kartid. marka muhiimadda waa maxay? inaad create new aad tirahdid intaan uu ka kooban yahay xayeysiinteedu. searchka waa kaas, displaygiina waa kaas. displayga waa inaan tuso, searchkiina waa inaan tuso. hadda bimatalan waxaan rabaa inaan ogaado googleka inaan ka baaro online course. that's why online course hadda igu soo baxaysa waaba tanba, soo ma jeeda online course. marka ilaa iyo halkan online course bas baan qoray. ilaa iyo halkan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 afarta ugu horeysa waxay kusoo baxeen wax xayeysiimo, ma ahan inay kusoo baxeen yani inuu googleka soo hormariyay xayeysiin buu sameeyey. dhammaantood online bstan xayeysiin bay samaysay. tan Pakistan waxaas ku qoranta xayeysiin bay samaysay. Udemy xayeysiin bay samaysay. that's why ay googleka 4 number ugu horeeya ay ugu soo horbaxeenba. taasna waxaa la yihahdaa waa searchka. displaygiina waa kaas. waxaa laga yaabaa displaygu uu yara ka fudud yahay tan kaleeto, laakiin waxaan ka hadlaynaa midda aadka u adag oo searchka ah. searchka iyadoo waxay hoos tagtaa intaas oo dhan. waxyaabaha kaleeto oo laga yaabo waxaa ka mid ah dad
adoo game dheelaya aad aragtay gameka xayeysiinada xilligood in xayeysiin iskaga kaa soo baxdo oo ifan uu promotion kugu siiyo inaad daawatid oo intaasoo lacag bubjiga oo ku aragteen babijiga oo kaleeto app adoo game iska dheelaya inaad ku dhex aragtid waxaa la yihahdaa app promotion baa la yihahdaa way ku dhex jirtaa sidoo kaleeto wuxuu qofka ku inspire gareynayaa inuu appkaasi la dego web traffic baa ka mid ah yacni siijkaadoo jooga in websiteka web traffic uu ku jiro yacni xayeysiinta inbound iyo outbound iyadoo isugu jirta labadiiba googleku labadiiba uu leeyahay wuxuu sameynayaa inuu outbound u qabto bimatalan haddii aad u baahan tahay app aad leedahay appkaaga u baahan tahay in dad badan oo dhoolan garaysto tibka waxaan idiin sheegaya waxa waaye appka soomaalida appka aad uma taqaana laakiin appka aad buu muhiim u yahay appiska ama inaad app dhistid appka waxyaabaha lacagta laga helo monetizationku ka mid yahay inaad isticmaashid iyo in lala digo labadaba lacag baa looga helaa laakiin dee waxay ku xiran tahay numberku inuu badan yahay marka haddii u baahan tahay inaad sala samaysid intaan oo nooc oo dhan baa xaysiimahooda waa loo sameeyaa googleka adskiisu waxdee xiisadii wax lamid a lagu soo koobi kara maaha waxaan rabay overview guud inaan idinka siiyo waxaa sidoo kaleeto jirta inaad aragteen youtube-ka I don't know youtube-ka markaa gashaan waxaa laga yaabaa inaad xaysiin iska kicisaanba video aa iska kicisidba marka hadda heestaanba bimatalan ba kici Panadol baa iisoo baxda hadda waa xaysiin waay tan ma aha yacni inay wax iskaga ka soo baxay tahay ee tan waa wax Panadol waa xaysiin escape baa leedahay in badan baa aragteen baa u malaynaya yaa arkay wax xaysiin Soomaali oo saan ah qolo Soomaali wax xaysiinaysa anigu laba mid baan arkaa u malaynaya wax kale ma arag hal qolo anigu aan u sameeyey marka waxaa muhiim ah sidoo kale googleka waxaa hoos tagta youtube xaysiintiisii marka video aa kicisid in xaysiin isaga kaa soo baxdo iyadana intaas waay oo waxaa laga helaa qaybtaas meeshan ay ku qoran tahay video haddaa ku dhufatid xaysiintaas video ma sameynaysaa okay waxaan rabnaa inaan marka wax yar ayadana ka hadlo siduu u dhisan yahay xaysiinta ad google adkiisu aad buu complex u tahay sida facebook oo kaleeto weliba facebooka si adag laakiin googleku wuxuu uga duwan yahay laba waxood mid budgetka iyo wuxuu uga duwan yahay waxa la baarayo facebook waxa laga yaabaa inaad videoga iska kiciso xaysiinta iska kiciso sida aadan ku qorin laakiin tan waxa la yihahdaa keyword baa shaqeeya keyword youtube-ka haddaad rabtid inaad xaysiin samaysid sometimes location baad doortaa sometimes dadku waxay doortaan haddaa facebook ads halkaan ku qorto facebook ads haddaan ku qorto oo facebook ad uu soo baxo I think ninka ugu koreeya haddaan ku dhufto waxaa laga yaabaa xaysiin facebook ka hadlaysa inay kasoo horbaxdo hadda wax xaysiina ninkan kama hormarin laakiin sometimes hadda siijka kaleeto sooma jeedaan waxaana waa xaysiimo weeye adska la xiriira marka muhiimaddu waxa waaye aan raba in halkan idiin sheego hadda ninkaan oo kaleeto Jordan Blatten baa la yihahdaa dadka aadka ugu caansan buu ku jiraa tutorial isu leeyahan gatay haddii video aa kicisid siijka halka wax ku qodhid videoga kuu soo kaco waxaa laga yaabaa related thing videogaas inay kuu soo kacdo I don't know hadda wuxuu usoo kici waayey xaysiimaha qaybto sometimes waa sida sometimesna sida maaha google adska saan buu dhisan yahay marka waad campaign baa la setup gareeyaa kadib ad group baa la sameeyaa kadibna keywords kadibna ads si kale haddaan kugu sharaxo yani campaignka si guud weeye campaign kadibna campaignki baa wuxuu noqonayaa laba objective kala noqonaya laba campaign baa rabtaa adduunka dhan ma ku jirta A/B test baa la yihahdaa yani labadooda midka fiican inaad yani tijaabisid kadibna keywords baa halkaas sameynaya marka googleka isaga iskale platformkiisa wuxuuso dhan isagaa wata keywordskii baa sameynaysaa toolska markaad tagtid I think sande sorry isagaa platformkan iskale google keywords waxa la yihahdaa jira marka halkan intaan la gaarin tan waxaa jirta meel iyadana keywordka si guud loogu qorto halkaana ku jirtaa oo loogu talagalay macnaha in keywordka markood balaan lagu sameeyo oo keywordka aan ka hadlayna waa maxay ilaan waxba halkan gelinaysaa wixii waxa la xiriira waxaan rabaa chorus oo kaleeto inaan xaysiiyo ilaa qofka googleka markuu yimaado chorus uu ku qorayaa meeqa waxoodoo kaleeto ku qorayaa ya inta waxoodoo kaleeto uu ku qori karo inaad balangareysatid baa lagaa rabaa keywordska markaad diyaarsatid oo dhammaan yani ilaa maxaan ku rahdaa 5 keyword 6 keyword aad la timaadid baad imaanaysaa campaignkaagii waa dhex gelinaysaa waxaan rabaa inaan idiin sheego casharka introduction weeye courska
google-ka waxaan u talagalay waxyaabaha aadka uga hadli doona iyada iyo facebooka ma aha iyadu sida uma fududa wayna ka qaalisan tahay boqolkiiba boqol oo bid wax la yihahdo buu ku shaqeeyaa yani wax sambal xitaa lagu gelin karaa ma aha marka si guud saan buu campaignkiisa u samaysan yahay campaignka ad groupka oo ad targetkii ah waxaa laga yaabaa dhowr nooc oo dad oo kala duwan dad Soomaali jooga dad Ethiopia jooga kadibna keywordskii inaad gelisid mid walba goonidiisu kugu soo saaraya kaas keywordkaas yani waxaa xaysiinta ku xirsaa keyword hebel matalan chorus oo kale qofka google-ka geliya ii soo saar igu xir kadibna website-ka ay waxay ku xiraysaa iyadoo inta ka balaaran baan insha Allah tacaala kasoo hadli doonaa YouTube-kana waa la mid cashirka ku xigi doonaan ku kulmi doono wuxuu noqon doonaa insha Allah rabbi email marketingka casharada markaan dhamaynana 3 course oo aad loo habeeyay la naqshaday waqti juhdi la geliyay oo cilmi fiican ka faa'iidi doontaa ma rajaynaya insha Allah kusoo biira telegramka yaga waan kaga mahadcelinaya